الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. waxaan ka hadlayaa markii Soomaaliya istiqlaalka iyo isku darnaa ay dhacday xafladii laga sameeyay adan waxay ahayd mustacmarad Ingiriisku haysto waxayna ahayd deked waxay ka mid ahayd dekedaha ugu waaweyn adduunka waxay lahayd ilaa 6 dekedood oo midba shaqo gooniya qabato midaacadaha u socda ama laga dhoofinayo Yemen, Soomaaliya, Ethiopia, Oman iyo khaliijka galka kulligood ama cadaan la dhigi jiray oo dib looga sii dhoofin jiray ilaa 600 oo markab mar baan samar kuleelad ka shaqeeyay aniga dekeda 600 oo markab baa bishii soo gelaysay qaarna waxbay u sidaan wadannadaas qaarna yani shidaalkoodii iyo cunadoodii iyo waxaas ka qaadanayaan waxaa joogay caalam 120,000 Soomaaliya waxayna lahayd xafiiska ugu weyn oo SWL muxuu ahaa dadka jooga cadanna badidood way ku jireen SWL dhalinyarada waxaa loo sameyn jiray xitaa muxuu ahaa markay firaaqo leeyihiin in tacliim iyo waxaas looga caawiyo xafiiskaas iyo Soomaalidii joogtay cadan waxay taageeri jireen dadkii u halgamayay xorriyadda oo SWL oo soo mari jiray cadan marka ay dowladaas u socdaan dejintooda safarkooda waxaasoo dhan way ka caawin jireen sidoo kale dadka meeshaa deganaa cadan shaqooyin badan bay haysteen dowladdu waa u shaqayn jireen xitaa waxaa jiray legislative councilka 2 Soomaaliya oo ku jiray oo weligood dhicin waxaa jiray judges baa jiray xukaan baa jirtay Soomaaliya waxaa jiray tujaar badan oo Soomaaliya oo macruufa ayaa jiray marka waxay ku lahayd Soomaalidu inuu ahaa waxaa kale oo jiray dooyaheedna aad ay u dhan jireen calan markii muxuu ahaa istiqlaalkeedii helay odayaashii ama dadkii waaweynaa oo joogay muxuu ahaa calan waxay heshiis la galeen muxuu ahaa dadkan tolayaasha dharka bay heshiis la galeen si ay u tolaan calanka Soomaaliya cadad aan la tirin karin oo calaamadii qaali sameeyey annaga oo markaa dhalin yaryar teenagers oo badan waxaa naloo geeyay calankaa inaan u qaybino magaalo keliya maha calan buuraley weeye marka ilaa 5 magaalo iyo waa ku yaallo yaryar way ka mid yihiin Macalla, Kreyter, Sheekh Cuthmaan, Tawaahi marka intaasoo dhan dhalinyaradii deganayd baa mid kasta loo dhibay calamada magaaladii oo dhan waxay noqotay calan Soomaaliya 26 Juun ilaa Juulaay ay soo gashay calankeeda meel kasta uu ka taagan
xafladii loo sameeyey 26-ka waxaa lagu sameeyey garoonka kubadda ee Macalla waxaa la oran jiray Macalla Soomaali waxaana heesaha iyo musiga tumahayay waa wada taqaaniin la oran jiray Ismaaciil Xudeyn 26-kii Juun xaflad Macalla lagu sameeyey cid kaloo xaflad kaloo ka weyn July 1st waxaa lagu sameeyey garoonka ugu weyn Cadan Crater isna Ismaaciil Xudeyn naftiisii ayaa heesa Soomaaliya oo xagga xorriyadda ah tirinayay isla markaa waqti aan waxba ka dambeyn dowladda Soomaalida waxay soo magacawday qunsul guud oo community-gu ay gacan siinayeen isaguna community-ga adeeg fiican u qabtay waxaa Cawad Xaaji Muuse baa la oran jiray Allah yarxamu kanadii ku dhintay dadku markay u tagaan waxaa oran jiray waa suubinaynaa wixii laga rabo baasboort iyo wax kasta Cawad suubiyaa loo bixiyey muxuu ahaa waxyaalaha benefitka aan helay waxaa ka mid ah annagoo haben joogna in dowladda Soomaali badan oo reer cadmeeda oo dugsiga sare ka baxay ay siiso deeqo waxbarasho oo meelo badan oo adduunka ku tegay waana u mahadcelinaa anigu dadkaasaa ka mid ahaa marka waktigaa waxaa jiray Soomaalinimo ma jirin qabyaalad 4.5 ma jirin marka waxaan ilaahay ka baryaynaa sidii sheekhu noogu duceeyey in wakti kaa lamida ilaahay inoo soo celiyo waana salaamadii anigu intaan khibradda u lahaa oo independence-ka wuxuu ahaa joogitaanka aan hadan joogay sanadka muxuu ahaa sanadka 1960-kii waa mahadsantii